ilaa Boosaaso ilaa Xamar ilaa wadada tani intaas ayaa gaadiidka mara u kala gooshaan iyaga oo ganacsiga iyo dadka noloshooda ay ku xiran tahay waxaad ogtihiin xilligii Soomaaliya dhibaatadu ka dhacday wadada tani inay ahayd wadadii lagu badbaaday dekada Boosaaso ilaa Xamar ilaa halka iyada ka shaqeynaysa wadadan maanta waa gooday waxay u baahan tahay in loo istaago oo shacab iyo dawladba loo wada gurmado loo istaago dawladdu shaqadeedii waa wadatay waana bilowday waxaana marxaati ka ah gaadiidkan dabadeena yaala hadda oo inaga halka dhinaceena yaala gaadiidkan waxa gaadiidkii ay ku shaqeynayeen company-ga Chinese-ka ahaa contract-ga helay oo isagu markii xilliga caalamka dhan ka dhacday ay dib u noqdeen dadkii ka shaqeynayay injineeradii iyo hawlwadeennadii shaqadan waday waxa xaqiiqada dawladda federaalka ee maanta jirta inay caqabad noqotay inay diideen inay soo noqdaan dadkaas oo shaqada qabtaan oo hawshii ay wadaan ay dhameystiraan dawladduna weli waa u taagan tahay waana diyaar waxaan rabnaa marka shacabku inuu qaybtiisa qaato shacabka reer Puntland guud ahaan meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa inay ogaadaan caqabada wadadan inay tahay dawladda federaalka ee hadda jirta oo xilligeedu dhamaaday madaxweynaha Puntland waa ka dadaalay lacag buu oo la kaydgareeyay bishii $100,000 iyo wax ka badan shaqadaana waa la waday maadaama shaqada istaagtay waxaan rabnaa marka oo company-gii uu meeshii ka baxay in la helo company-yada localka inay bedelaan dadku leeyahay ee reer Puntland dadka reer Puntland waxa laga rabaa dhaqaalaha inay qaybtooda qaataan waxa jirta shir weyn oo iclaamiyeen ismada gobolka Nugaal khaasatan Islaan Ciise iyo Suldaan Saciid Maxamed Garaase marka waxaan rabnaa in shirka laga soo qayb galo dadku contribution ka bixiyaan maalmahan waxaanu wadnay asgudi ahaan inaanu kormeer ku sameeyno iyo ku gelid shaqooyinka markaasi golaha baarlamaanka ay noo idmeen oo waxa weeye la xiriira hawlaha gudiga meelo badan baan runtii soo marnay intaan hawshaas wadnay runtii waxaan u mahad celinayaa in gudoomiyaha gobolku xiriir badan la soo sameeyo waxa uu dhahayo ilaa ilaaba ma garanaysaa meesha koowaad oo aad tagtaan ha ahaato wadada midgari soona isku xirta wadadan halbowlaha Soomaaliyeed runtii waan uga mahad celinayaa gudoomiyaha dadaalkaas wanaagsan oo wado maanta si wanaag waxaanu joognaa wadadii waxaan u maleynayaa waa xilli aad u kulul oo 6 meelahaas joogto arrinkaasna waxa keenay waxa weeye culayska ay nagu hayso ma garanaysaa in wadadaas iyo dhibaatada ka jirta ogeeda sababay sideedana dawladdu waa shacab sideedaba dawladdu waxay dawlad ku tahay oo u shaqeeyo shacab dadka mas'uuliyiinta xilka hayana waa adeegayaal weeye runtii shacabkaas bay waxay ka hawlaha isugu aadiyaan oo adeegayaal laakiin dawladda lagu sheegayaa sida waa shacab waxa marka koowaad nasiib darro ah in waxa weeye sida gudoomiyaha robotku nagu siiyay in dawladda federaalka ahayd waxa weeye kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad ba ka qayb qaadan lahayd inay waxa weeye ay caqabad ku noqoto wadada halbowlaha ah oo waxa weeye Soomaali weyn oo dhan anfacaysa raas casayr ilaa raas Kamboni halkaas ay wada maraan inay runtii ay caqabad u aragto oo waxa weeye intay ayadu taabin lahayd arrinkaas waxa weeye nasiib darro runtii aad iyo aad u weyn weeye guud ahaan waxa weeye marka federalism laga hadlayo muhiimadu u leeyahay waxa weeye in state walba horumarkiisa asagu uu ka shaqeeyo shacabkiisu wixii markaas gacan uga baahdo dawladda federaalkana oo hanti Soomaaliyeed ku yimaadana inay qaybtooda ay ka helaan hadda waxa socda marka dadaal badan oo waxa weeye isku tashi wax lagu qabsanayo oo dawladda Puntland iyo shacabkeedu ay iskaashanayaan oo wadooyin badan la dhisayo sida mudanaasha hore ay sheegeenba arrinkaas waxa weeye arrin aad bogaadinteeda la weeye waxa loo baahan yahay marka in wadadan saa muhiimka u ah inaanu ayadana in loo kaco oo shacab iyo dawladba runtii laga wada qayb qaato Soomaaliyo dhan baa runtii madha ku nool halbowlaheedii ay tahay in marka cid kasta oo Soomaalinimo damiir Soomaaliyeed ku jiro oo ma garanaysaa inay qayb ka ahaadaan runtii aad baan runtii aan ugu baaqaynaa ismadu khayr Allah siiyo runtii ismadu Soomaaliya dhan ismu u yihiin gogoshaasna runtii waa bilaabeen waan uga mahad celinaynaa
waxaana shacabka ku boorinaynaa iyo maamulka gobolkaba in waxa weeye gogoshaas la tago wadadaa wixii lagu bixiyo marka waa sadaqa jaariya runtii oo waxa weeye aakhire iyo adduunba kuu shaqaynaysa qofkii wax kula baxa qof walba marka bishii rabadaanna waa bilaabanaysaa oo waa lagu jiraa maalmahan ay bilaabanaysaa insha Allah biilna kariim waxa la rabaa qof walba sadaqo inaad ula baxdo inaad wadadaas sadaqa jaariya ku wahato adaa la baxaya waaridkaabaad ula baxaysaa oo wax nafsadaada aad ula baxday haddana waa wax dadkii noloshii Soomaali weyn anfacay ayay haddana dhanka kale ka tahay marka guud ahaan shacabka Soomaaliyeed shacabka reer Puntland iyo dawladdu soo iskaashanayaba waxaan ku baaqayaa waxa weeye in wadadaas loo wada kaco kaalinteedana la qaato annaga waxa weeye gol ahaan runtii waxaan diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano sidii awalbana la ku yaqaano ee wadooyinka dhismayba qaybta baarlamaanka ka qaateen awalna aan samayn jirnay inaan xoog maskax iyo dhaqaale intaba inaan qaybteeda uga qaadano gol ahaan runtii arrinkaasi diyaar baan u nahay insha Allah biilna kariim markastana waxa weeye inta wadadaas iyo inta la mid ay dhismayaan waxaan diyaar u nahay inaan meel kasta oo caqabada ka jirto la mid inaanu tagno waxaan halkan maanta aan taaganahay waa area Midigar Sinajif waxaan maanta u nimi meeshan inaan khatarta ka jirta awgeed inaanu soo booqano maadaama nahay guddigii howlaha guud ee shaqada tan u qaabilsanaa baarlamaanka meeshan runtii sidaan hadda meeshan aan taaganahay qalabka yaalla aan u jeedno shaqada qaar ka mid ah in la qabtay baan aragnaa oo meesha hadda inaga dambayso kale xoogaa shaqaa baa laga qabtay laakiin caqabadii laga soo sheekeeyay awgeed bay u istaagtay shaqadaasu hadda waxaan rabnaa waxa la yiri dhiciska inta midada loo soo sido buu baqtiyay waxaan rabnaa meeshan in si dawladda iyo shacabkuba si wada jira inay uga wada qayb qaataan oo loo sameeyo qorshe ayadoo qorshayaashii hore oo loo sameeyay wali ay soo daaheen laakiin hadda rabno in mid ka sii horeeyo oo la rabo in wax looga qabto waayo meeshan laba khatarood baa hadda ka muuqda khatar waxa weeye khatarta nafta oo waxa weeye gaadiidka maraya dadka saaran khatarta ka imaanaysa weeye waa khatarta nafta ah midda labaadna waa iyada khatar ku imaanayso meeshan caawa haddii roob helo wadanku waa kala go'aya wadadan saa ka soo wada sheekaynay ama aan ognahay waa wadada halbowlaha inoo ah Puntland iyo Soomaaliya oo dhan bay isku xirtaa waagii dhaweyd ee gooday caqabadihii ka yimi iyo dadaalkii laga sameeyay ka hor intaan kaasoo kale ku imaan baa waxaan rabnaa inaan ka hortagno khatartaas khatar la mid ah iyo mid ka daran baa ka soo socota maanta sidoo hore loo soo sheegay gudoomiyaha iyo xildhibaankii ugu horreeyay bay u sheegeen waxaan taaganahay halka Midigar waa meesha dhibta ugu badan ama burburka ugu badan uu ka jiro wadada dheer ee isku xira Soomaaliya oo dhan halbowlaha u ah runtii hadda mudday gooneed wadadaas waa laga soo sheekeeyay laakiin dhibta waxay ka timid kambaniga la siiyay iyo dhibaatadan caamka ah ama cudurkan caamka ah ee Soomaaliya ummadda oo dhan hadda dalkii adduunka oo dhan ku habsaday taas ayaa keentay inay baaqato inta ay soo gaadho laakiin ma ahayn maanta inay halkaas soo gaadho horeyna loo sameeyay ba ahayd dawladdana qorshe u sameysay qorshihina insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeya si loogu talagalay inuu u fulo ujeedka u nimid maanta waxay idin anaga soo aragno dhiirigelinayna dawladina ku baraarujino in meesha laga sii wado hore loo sii wado ayadoo aan dhinaca kale taageerino baaqa isimada gobolka Nugaal ka yimid iyo shirka maalinta Sabtiga loo ballamay loogu ururinayo fundraising loogu sameynayo wadadaas si lagu dhisi lahaa waa garab taagannahay mar walba waan dhiirigelinaynaa annagoo labada dhinac marna dawladda ka tirsan marna matalayna shacabkii waxaan naga go'aan insha Allah wadadaas sidii u dhismi lahayd insha Allah Ilaahay raado inaan daba taagnaano mar walba meesha mareysana ka warhayno maanta waxaan taaganahay wadada isku xireysay Boosaaso ilaa iyo Beledweyne ilaa iyo gobolada dhexe ama waqooyi ha noqoto khaasatan magaalada Sinajif area-da Midigar oo ay ka go'an tahay wadadu muddo 2 sano ku dhow ولينا انت يرتا او جينوس كو qabteen ka bacdina caqabado yimaadeen waxa laga qabtay wax kale laga qaban maanta waxa halka u nimi in aan dadka reer Puntland aanu ku baraarujino maadaama shir uu jiro la isugu imaanayo Sabtida annagana shaqadayadii ay tahay oo
warbixintii guddiga howlaha guud iyo gaadiidka iyo wadooyinka aan nahay inaan maxay ahaatay ii keen warbixintii baarlamaanka loo gudbin lahaa iyo dowladda sidii aan ugula xisaabtami lahayn una tusi lahayn wadada tan haddee inay u baahan tahay in wax laga qabto. Puntland waxaa lagu yaqaanaa isku tashi, Puntland waxaa lagu yaqaanaa inay nafta isu hurto. Waxaan ognahay in maxay ahaatay ii keen dekedo inoo socdaan oo isku tashi ah. Waxaan ognahay wadada ugu dheer oo ugu maxay ahaatay muhiimsan oo Ceeldaahir ilaa iyo Ceerigaabo ama Baranba hadda galaysa inaa isku tashi tahay. Inaan meermeerka iyo Kalabayr iyo intii u dhaxaysay inaan isku tashi ku samaysanay. Kuwa kale maxay ahaatay ii keen Xaaji Khayr area sidoo kale lagu wado tanna isku tashi hadda hawsha lagu bilaabo. Meesha aan ka soo saarayna dhaqaalaha aan ku qabsanayno iyo meesha aan gelinayna waa isku meel weeye. Maanta marka waxa halka u taaganahay inaan maxay ahaatay ii keen warbixintii dowladda oo aan u gudbin lahayn iyo aragtidii aan ka soo qaadanay meesha tan iyo dhiirigelintii dadweynihii reer Puntland guud ahaan in aan maanta halka uga gudbino. Waxaan idin leenahay maanta waa maalintii loo baahnaa way xilli roobaad baa lagu jiraa in loo qareemo isimadii ugu maxay ahaatay reer Puntland gobolka Nugaal baa yimi waa jeetaan qaaldhaantoodii Suldaan Ciise iyo Suldaan maxay ahaatay Siciid birrina shir baa la qabanayaa loo dhan yahay guud ahaan shacab weynaha reer Puntland maxay ahaatay dowladda iyo cid kasta oo maxay ahaatay ii keen joogta in arrinta laga qayb qaato.